مسرح وماشي أمد الصومالي اللي هو جميع دخل كده مرايد اللي قد عوضوه سياسة كي وحال السبعية إن بدقنا عصتها قايب دباء عيارتين يقول هذا يقدر العلم شايفك الدباء وكنت قلت لي إن وريتي أو ليجي لواسل سنة. hase yeeshee agaasimaha tiyaatarka qaran ayaa sheegay in dhulkaasi bannaan loo kireeyey si looga faa'iidaysto. tiyaatarku sidii caadiga ahaan jiray wuxuu u baahday makhaayad heer sare ah oo martida iyo madaxda iyo dadka iliidka ay kafee u soo doonan karaan. dad badan baanu ka dalabnay inay makhaayaddaas sameeyaan. kabacdi waxaa ku guulaysatay gabar hoteelka Xawataako haysata. iyo barnaamijkii ciyaaraha oo maanta oo kale aad maqli jirteen. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Mursal Xuseen anigoo Cabdi Saaxib Ibraahim Caageerna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashi. mahadsanid Cabdi Fataax. agaasimaha hay'adda qaxootiga qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ka digay in dhammaadka daadgureynta Afghanistan ka socota ay noqon doonto bilowga dhibaato laxaad leh oo dalka ka dhacda. wuxuu dalalka waddanka ologala ugu baaqay inay xuduudaha u furaan sidoo kalena wadamada kale ee dunida waxa uu ka codsaday inay qaataan mas'uuliyadda bini'aadanimo ee ka saaran dadka reer Afghanistan ee qaxaya. daadgureyntii dadka rayidka ah ee ka socotay madaarka Kaabul ayaa haatan joogsatay waxaana loo malaynayaa in kumanaan qof oo ay ahayd in halkaa laga qaado aan haatan lagaga tegayo. qaramada midoobay ayaa saadaalinaysa in qiyaastii nus milyuun qof ay dalkaasi ka qaxi doonaan sanadkani inta ka hadhay. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha soo gaadhay shacabka weerar ay qaaday diyaaradan duuliya lahayn axaddii oo Washington sheegtay in lagu beegsanayay dad lagu tuhunsan yahay inay yihiin ismiidaamiyayaal ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamka. wararka ayaa tibaaxaya in 10 qof oo rayida lagu dilay weerarkaasi oo dhammaantood qoys kaliya. 6 ka mid ah ayaa la sheegay inay carruur yihiin oo ta ugu yar ahayd inan 2 jira. ehelada qoyskaas ayaa sheegay in qoyskaasi haysteenba fiisa ay Maraykanka ku tegayaan. Maraykanka ayaa sheegay inuu wararkaasi baadhayo waxaanu intaa ku daray in weerarkaasi lagu beegsanayay baabuur ujeeddaduna ahayd in laga hortago weerar kale oo lagu okeeyo madaarka Kaabul. Taalibaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada Maraykanka ee Kaabul joogay inay sifo sharci darra u dhaqmeen maadaama oo bay yidhaahdeen ay weerarro diyaaradahan duuliya lahayna ka fuliyeen dal shisheeye. Taliban ayaa xidhay wadaad saameyn weyn leh oo reer Afghanistan oo la taliyo u ahaan jiray madaxweynihii talada laga tuuray Ashraf Ghani. wadaadkaas oo la yidhaahdo Mufli Mohammad Sardar Sadran ayaa mar ahaan jiray guddoomiyaha golaha culimaawidiinka Afghanistan. wiiluu dhalay ayaa sheegay in Taalibaanku ay ka qabteen gobolka Khost. sawir la baahiyey ayaa muujinaya Sardar Sadran isagoo indhaha ka xidhan fadhiya. wadaadkaas ayaa dad badani taageersan yihiin waxaana la sheegay inuu ku baaqay kacdoon lagaga hortago Taalibaanka. dagaalyahanada Taliban ayaa waayo hore bartilmaameedsan jiray culimaawidiinka u janjeedha xukuumadda Afghanistan. khubarada Maraykanka ayaa ka digaya in xeebaha gobolada Louisiana iyo Mississippi ee ku soo rogman doonaan daadad halis ah maadaama oo duufaanka Aida uu ku soo dhow yahay bariga goboladaasi dalka Maraykanka. Aida ayaa haatan xooggiisu isdhimay inkastoo markii uu xaddii soo gaadhay bariga ayaa haatan waxaa lagu sheegaya in halistiisu aanay sidaa u sii weyneyn. laakiin xarunta la socodka duufaanada ee Maraykanka ayaa sheegtay in roobabka mahiigaanada ahi ay khasaaro badan oo dheeraada keeni doonaan. gebi ahaanba magaalada New Orleans ayaa leertirigii iyo teleefoonaduba ka go'an yihiin. daadad laxaadle ayaa iyaguna sidoo kale caqabad ku noqday in korontada dib loogu soo celiyo magaalada iyo in dadka guryaha ku go'doonsanba lasoo samata bixiyo. Professor ka dhigta maaraynta gurmadka degdega jaamacadda Jacksonville State University ayaa ka warramaysa khasaaraha. We know that the areas southeast and southwest of the city of New Orleans. waxaan ognahay in deegaanada koonfurta bari iyo koonfur galbeed kaga beegan magaalada New Orleans oo xeebta u dhow ay soo gaartay saameynta musiibadan. waxaa sidoo kale ina soo gaaray warbixino la xiriira in meel aan sida halkan uga fogeyn dad laga soo badbaadiyay saqafka kore. magaalada New Orleans waxaa ka go'ay khadadkii korontada qaybinayay oo dib u dhiskeedu qaadan doono muddo 2 toddobaad ah. waxayna ila tahay in burbur xoogan uu soo gaaray. agaasimaha xafiiska Yurub ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in ragaadka barnaamijyada talaalka fayraska corona iyo kororka xaddiga uu ku fidaya ay yihiin arrin walaac abuuraysa. Hans Klug ayaa saadaaliyay in qaaradda Yurub ay ugu dhiman doonaan fayraska in ka badan 230,000 oo qof marka la gaadho bisha Disembar ee sanadkan. wuxuu sidoo kale difaacay qorshayaasha in talaalka dadka qaarkood markii saddexaad la siiyo si loo xoojiyo kuwii hore ay qaateen. waxaanu sheegay in ay mar saddexaadkaasi uu yahay mid lagu doonayo in dadka nugul lagu difaaco. isagoo arrintaa difaacayayna waxauu yidhi
A third dose of vaccine is not a luxury booster. qaybta saddexaad ee tallaalka ma ahan mid loo qaato faakahaysi marka loo eego qof aan weli qaadan kuuradii koowaad ee tallaalka balse waa qaab lagu ilaalinayo nabadqabka dadka kiisa ugu nugul hase ahaatee saasoo ay tahay waxaan u baahannahay in tallaalka aan wadaagno waxaan u baahannahay in dhammaanteen aan isgaarsiinno But at the same time, we need to share, so we need to do it all. codkaasina wuxuu u dambeeyey wararka caalamku inala socodsiinayay waryahayaga axmed maxamed ibraahim axmed nagaash halkaad kala socotaanna waa b b c dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownaya sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen duqeyn dhanka cirka oo maraykanka uu ku bartilmaamaydsanayay qof isqarxin rabay ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo hal qoys ka wada tirsanaa kuwaas oo ay ku jiraan baa laleeyahay 6 carruura sida ay b b c da u sheegeen qaraabadii weerarkaasi ka badbaaday 10 qof ayaa dhimatay kadib markii gaari gurigooda yaalay la garaacay axaddii haatanna maraykanku waxa uu sheegay inuu baarayo dhacdadaasi ay dadka rayidka ku dhinteen sida uu maraykanka sheegayna duqaynta dhanka cirka ah waxaa lagu bartilmaamaydsanayay ugu yaraan hal qof oo doonaya inuu isqarxiyo oo ka tirsan ururka la baxay dowladda islaamiga haddaba faahfaahinta warkan waxaa isku soo duwayna la socodsiinaya axmed mursal xuseen maraykanka ayaa sheegay in qalabkooda ka hortaga gantaallada uu hawada ka qabtay ilaa 5 gantaal oo lagu soo riday madaarka kaabuul meel u dhow halka ay ameerikaanku ka wadaan howlgalka daadguraynta mana caddaa cidda soo riday gantaalahaas qaar ka mid ah shacabka kaabuul oo ka agdhowaa goobta ay ka dhacday mashaqadu ayaa sheegay inay arkeen gantaallo laga soo riday gaari halkaasi taagnaa waxayna intaasi ku dareen in dadka halkaasi wax ku yeeloobay ay dhammaantood ahaayeen dad rayid ah waa kan mid ka mid ah dadkii goobtaasi joogay waxay ahayd 6dii subaxnimo markii aan maqalnay duryaanka qaraxa kadibna bannaanka ayaan u soo baxay si aan u eego waxa dhacay waxaan u malaynayaa in ay duqeeyeen garoonka nasiib darro khasaaraha dhacay intiisa badan shacabka ayuu gaaray iyo dadka saboolka ah dadka aad ayay u argagaxsan yihiin wayna ka walwalsan yihiin mustaqbalka iyaga oo ka baqdin qaba in weerarrada gantaallada ay sii socdaan qaar ka mid ah qaraabada dadka dhintay ayaa warbaahinta c n n ee maraykanka u sheegay in dhammaan dadka sagaalka ah ee halkaasi ku dhintay ay isku qoys ahaayeen war qoraal ah oo ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa lagu qiray in ay jireen qaraxyo xooggan oo halkaasi ka dhacay kadib duqayntii dhanka cirka ahayd ee gaariga lagu bartilmaameedsaday maraykanka ayaa feejignaan buuxda galay tan iyo markii qof ismiidaamiyey uu 100 qof oo rayid ah iyo 13 ka mid ah ciidamada maraykanka uu khamiistii hore ku laayey bannaanka hore ee madaarka magaalada kaabuul waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay laan ka tirsan kooxda isku magacooda dowladda islaamka qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ayaa ku rajo weynaa in lagu daadgureeyo oo ay raacaan diyaarado ka baxayey magaaladaas oo 15kii bishan agoosto gacanta u gashay ururka taalibaan aaday u mahadsan yahay axmed mursal xuseen ayuu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay wararka soomaalida markaan aynu u galnay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland ayaa sheegay in doorashada qofka iyo codka ah ee 3 degmo ay ku qaban doonaan wakhtigii loogu talagalay gudoomiye guuleed saalax barre ayaa hadlayay kadib shir uu la yeeshay ururada siyaasadda ee puntland midkaas oo lagu falanqeeyey war ay soo saareen ururadaasi siyaasadeed kaas oo ahaa in doorashada 3 degmo ee eyl ufeyn iyo weliba qardho dib loo dhigo hase yeeshee shirkaasi kadib ayaa waxaanu inoo suura gashay inaan faahfaahinta weydiino gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland guuleed saalax barre u warramay axmed cawil jaamac oo garowe kula kulmay axmed waa mahadsantaha walaal ururada kulan baa saaka wakhti fiican la qaadanay dood fiican baanu wada yeelanay la tashi inaan yeelannana waa waxaanu ku soo dhaqmaynay ilaa iyo markii ururadu ay asaasmeen wakhtiga oo ka mid ahaa waxyaalihii ay ka hadleen 3 qodob baa ugu muhiimsanaa wakhtiga waxaan u sheegnay inaan haddeertaan duruuf dib loogu dhigi karaa aysan jirin diyaargarowga la sameeyena runtii uu noqonayo mid aan ku habbooneyn hadda in dib u dhigis maaragta la sameeyo taasaanu maaragta u sheegnay in u diyaar garoobaan doorasho oo doorashada ka qayb qaataana u sheegnay labada qodob kale midna dhaqaalaha midna xeerarka ahana hadde xeeran haddeertaan lagama shaqayn karo ilaa sanadii ziyaada ka soo shaqeynayna xeerarka oo hadda wax hadda maaragtay dood soo jirta hor u soo jirta ma ahayn oo wax hadda maaragtay uu bilowday waqtigaanna xeerar iyo furistood iyo dib ugistood hadda lagama shaqeyn karo iyadana u sheegnay dhaqaalahana dowladdana waa kala raadinaynaa awalna waa kala raadin jirnay wixii maaragtay suurtagala waxyaalaha qaybtoodna waaba la xalinay dhaqaalaha ahoo
maaragtay laftigayagu aan hore ugu qareemaynay marka intaasaan marka mid la aqbaleen maadaama ay shalay soo saareen inay doonayaan in doorashada dib loo dhigo de runtii hadda qaybtoodu ayaga hadda shirka jilcid haya annagu waxaanu u sheegnay inay doorasho u diyaargaroobaan marka diyaargarowgoodu waa wax iyaga ku xiran dee ururkii aan diyaar ahayn oo aan doorasho ka qaybgelayni kuma khasbana annagu inaan soo jiidno laakiin annagu waxaan u diyaarinaynaa urur walba inuu helo spacekii sharciyadeed oo ku tartami lahaa inaan u diyaarino ayaanu maaragtay u sheegnay aanan u diyaarin doono hadduu ilaahay yidhaahdo marka iyagaa laga rabaa waana filayaa xoogoodu inay hadda aanu ka fahanay shirkayaga inuu xoogoodu diyaar yihiin inay ka qayb qaataan doorashada laakiin ururka ka aho inta badan lagu tiriyo xukuumadda baa ka mid a ururada u ololeynaya in doorashada dib loo dhigo iyaga ma ka qanciseen arrintaas de horta kah waa ururada ka mid ah ra'yiga iyo marka la doodayana hadda kama akhrino dowlad inuu yahay waxaan ka akhrinaa ururada ka mid inuu yahay xor buu u yahay ra'yigiisa haddana wuxuu ula siman yahay ururadaas wixii go'aanaho annagu aanu soo saarnaayo waa ururada ka mid a marka haddee iyagaa laga rabaa doorashada ma gelaysaan mise diyaar buu tihiin sida ururada kale loo weydiin in loo weydiiyo laakiin annaga haddeertaan waxaan u sheegnay dhammaan ururada inay isku diyaariyaan doorashada marka ururada badankooda waxay ka cabanayaan dhaqaale xumo inay hayso waxa ay leeyihiin oo kale in doorashada Soomaaliya inta ay dhacayso waa in doorashada dib loo dhigo marka taasoo kale idima muuqato miya maxaad garawshiyo aad u siin weydeen walaale doorashada Soomaaliya ogtahay waqtiyo badan bay jijiitanaysay hadeerna dhowr jeer hore waana soo dib dhigtay haddana waqti cadow ay leedahay 10 bisha Oktoobar baa la astayay barigii haddana suurtagal ma aha in 10 bisha ay ku soo gabagabowdo marka uma joojin karno oo uma xanibi karno doorasho waqtigeedaba uusan cadayn annagana 3 degmaan doorasho ka qabanaynaa waxaan aaminsanahay in hadeertaan isku dhac weyn oo saameynaya inay labaduba maaragtay isdul fuulaan aysan jirayne hadda liiska haddii la soo gudbiyo dhawaan la soo gudbiyay waxa haray waa un campaignki iyo doorasho in la qabtaay waxaana hadda wax waqti badan u sii baahan maahan marka waxaan aaminsanahay in hadda waqti loo dibdhigo la yidhaahdo doorasho aan la hubin waqtigeeda inay ku kalifi karayso in hanaankan oo awalba jilicsanaa inuu maaragtay dhaawac soo gaarayo marka goormay dhacaysaa doorashadu 25 Oktoobar bidacaysa hadduu la yidhaahdo sanadkan ha kaasi waxa uu ahaa guuleyd saalax barre gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland oo u warramay wariye Axmed Cawil Jaamac BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waata markana qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka ayaa laga soo sheegaya abaar iyo biilaan baahsan oo saameyn ku reebtay dadka iyo dunyada halkaasi ku nool dhibaatadan ayaa timid kadib markii ay gureen warihii biyaha islamarkaana dhulkii uu xaaluf noqday maadaama halkaasi ay ku yaraayeen roobkii labadii xilli roobaad ee ugu dambeeyey biyo-la'aantaas iyo xagaaga daba dheeraaday ayaa sababay in qaar ka mid a dadka reer miyiga ay u soo hayaamaan dhanka iyo magaalada sida bilisqoqaani oo kale halkaas oo ay dhibaato badan ku wajahayaan dadkaas waxaa ka mid ah cabdikariim maxamuud cabdi oo khadka taleefonka igu warramay waxaan joogaa qooqaana ku sugna hadda xoolaaley baan nahay kor baan ka soo cararnay xooley waxay daaqaan waayeen tiin baa la dhaho oo bilis qooqaana ku yaallo ayaan u soo cararnay wara oo bini'aadanka qotaan oo la cabayni warihii way go'een matooradaan imaanay matooradana waa iska rafaasanahay oo shidaalka raacta waa iska bixin laanahay xaggeed ka soo tagteen markii hore waxaan ka soo tagnay sawskuraj meel la yidhaaho oo baadiyahan ka imaanay dadkii reemiga aad u tabaalaysan baan nahay maxaad ka soo cararteen waxaan ka soo cararnay waraa laga cabaay warihii way go'een dhulkana wax laga qaadaa la waayey geedkii la dhaho oo qooqaani meesha joogo ayaan u soo cararnay lood oo la soo cararnay iyo annaga nafteenaba meeqa qoys baad tihiin waxa qoys la dhahay maaha dadweyne badan oo deegaan oo meesha degan baan nahayn meesha naf baan ugu soo cararnay magaalada haddaan imaanana dad reemigaan nahayn xoolo ku dhaqataan nahayn xoolihii wax gadanaya ma laha xagga dawladda aanu taagnayna wax oo kalkaalimaysan ku haasana ma laha marka dad uun kolba haddee ma ogajahay ilaahay ma oga hadda wax nolol oon kolba aan haasano ma laha magaalada markaad timaadeen maxaad kala kulanteen de maxaan kala kulmayn annaga umaa meesha ka tagnay biyihii macnaha ceelasha waan u dhowaanay markaan xoolihii waraafoodan hataa waa iska bixin laanahay wax hadda gargaar oo ama gacan qabasho oo xagga dawladda aan u imaanayna oo meesha haysatayna oo inoo yeelata ma jirto mar haddii aad ka soo tagteen deegaankii aad ku nooleydeen oo haatan aad qooqaani joogtaan xoolihiinni aawe wixii dhintay wixii kale meelahan jooga meeshay joogaan wixii dhintayna waa dhintay wax hadda sii daba socdo ayaan hadda daba taaganahay xaggeed daaq uga heshaan wax daaq oo heli oo ilaahay qalqad ma laha geedkii la dhaho oo madow oo adduunyada ohol baana cunayn ayaa naf u geysay oo cunahaas oo afkana ka boogeynay waa looda miya looda way looda ilaa meeqaad xaaladan ku jirteen
ilaa bishan hadda aan ku jirno la saddex yaan ku jirnaa laakiin bilba bil bay kasoo daynata bishan aan ku jirno waxna ugu sii daranba male roobkana waa hore in kugu dambeysay miya roobka waxaa noogu dambeysay 4 bilood ka hor wakaasoo 4 bilood ka hor aa noogu dambeysay roobkana sideedaba meesha wuu ku yaraa hal roob baa ku dhacay asagoo dalka abaar sii ahaa kiina hadda wuxuu taray ma laha marka walaalow meeshaas xag ilaahay waa laga nool yahay laakiinse waa jirtaa dhibaato wax la dhaho xoolihiinnii baad la soo qaxdeen iyo wixii aad heli karayseen markaas oo aad la timaadeen halkan aad igala hadlaysa haatan biyaha aad gadataan meeqaad ku iibsataan biyaha waxaan ku iibsanaa caagi 1,000 shilin wer oo Soomaali ah 20 saacana waa 2,000 oo Soomaali ah wakaas saasaa lagu cabaa neefka geela waa 5,000 lacagtaas ma awoodaan marka lacagta ma awoodno maxaa yeelay anaa xoolaaley baan ahayn xoolahayna gadan jirna wax waxna garanay bamale wixii noolna sideed ku maaraysaan marka nolosha reerihiinna hadde meelan u aragno oon garanayno ma leh intaan hoos joognana in dalnagana ma aha ama dawladda ahaanta lagu tilmaamay annagana hadde reemiyaanaha oo hay-ada waxaasa dad uqaqaylisan karo ma nihin wixii hadde qoraal imaadana waa un dhinacamaan ugula dhuftaa maamulka magaalada aad timaadeen ma la hadasheen oo dhibkeedin haysta ma kala hadasheen waa u sheegna wax nooga garaaba ma arkin dawladda anta ku hoos noolena hadda wax gargaar oo ay noo qabatay ama hay-ad oo shidaalba ha noqoto ama nololba ha noqoto inoo geysatana ma jiro hadda hadduu xaal sidan yahay maxaa idiin qorshaysan inaad samaysaan waxaan samayn karno oo annaga noo qorshaysan ma laha waxaan samayn karno dad xoola ku nool baan ahayn ilaahay hayiisa ma wax ka sugahay kaasi wuxuu ahaa cabdikariim maxamuud cabdi oo khadka taleefonka ee qooqaani ugu warramayey isla wararka abaarta ayaynu ku guda jirnaaye dhanka iyo deegaanka gaarisa ee waddankan kenya ayaa iyana laga soo sheegayaa abaar ba-an oo saameyn culus ku reebtay dadka iyo duunyada oo xoolahana xataa waxaa loo quudiyaa sida dadka loo quudiyo oo kale haatanse waxaa soconaya dadaal ay wadaan culimmada magaalada gaarisa oo ay doonayaan in dadka iyo duunyadaba ay ugu gurmadaan waxaa ka mid ah culimmadaasi sheekh xasan cabdulaahi camey oo khadka taleefonka ugu warramay waryahayaga axmed maxamed ibraahim axmed nagaashi xaaladda aad iyo aad bay u adag tahay ilaahay ha noo taysiiriyo abaartii way muddo dheeraatay dhulkiina waxoogaa waxaa ku dhacay nabaad guur meelihii magaalooyinka iyo maaragtay ee la degi jiray xoolaha lagu qadi jiray ee xoolaha daar dhulkii oo dhan meel walba magaalo noqday mashiime iyo wara iyo wax walbaa laga qoday roobkiina wuu iska yaraaday runtii waxaa dhacday xoolihii iyo dadkiiba in la quudin hayo xoolihii in la biyo loo dhaamin hayo in raashin la siin hayo dadkina cunto iyo biyo inay u baahan yihiin xoolihiina ay baaba yihiin oo dhammaan hayaan oo liitaan suuq la-aanna ay jirto intaasaa iskugu darsantay marka dadkii xaalad aad iyo aad u adag bay ku jiraan ma xoolihii bay quudinayeen ma xoolihii bay waraabinayeen ma ayagii laftoodii bay ka fikirayaan si wax la yeelaa lala arrinta ayada ayaan annagoo culamaa udiin oo 100 gaarayaan ayaan magaalada gaaris iskugu imaanay oo culummada aan isku keenay annagoo arrimaha ka tashanayno sidii laga yeeli lahaa iyo wixii laga qaban lahaa waa tahay sheekh xasan idinku mar haddii culimo ahaan aad is-abaabusheen wax kale oo dadaala oo dadka lagu cayminayo ama dawladdu ay waddo ama shakhsiyaad kale ay wadaan ma jira wax ilaahay abuurto program oo kala socdo oo arrin oo kala qalqaalay abaabul oo socdo ma ay jirto marka culimadii go'aamadii ka soo baxeen shirkoodii waxa ka mid ahaa in ilaahay loo toobad keeno ilaahay loo soo noqdo abaartan iyo dhibkan iyo xaaladahan lagu jiro sidoo ilaahay ba noo sheegay subxaanahu wa ta'ala wama asaabatkum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an katiir bu ilaahay yiri waxa la wixii musiibo nagu dhacdo waa waxaad gacmihiina kula imaateen ilaahay intuu inii cafinaya ayaa ka badan inta uu maartay inii qabanayo marka sidaa darteed waxaa la yiri marka koowaad ilaahay aan u toobadkeeno ilaahay aan u soo noqono waxa la wixii madaalim ahaa maartay la kala geysana hal iska cafiyo oo dadka cafis inay cafiyaan istaafurta in la badiyo ilaahay loo soo noqdo loo toobadkeeno masaajida maartay jimcadan soo socotay u horeyso in laga bilaabo maartay manaabirta khudbooyinka in lagu alla baryo intay xaaladan aan ku jirnay ay iska bedeli qunuud in la sameeyo 5 salaadood in ilaahay lagu baryo oo lagu qunuudo ayaa maartay iyadana go'aan laga soo saaray axadan soo socotana hadduu ilaahay yiraahdo in roobdoon weyn laga sameeyo magaalada gaaris oo xaaladda corona-ga jirta darteed la iskuma soo bixi karo garoonka weynaa ee ciidda la iskugu imaanayo lama tegi karee xaafad kasta masaajidkeeda inay ka soo baxdo culummada ay hogaamiyaan intaana lagu celceliyo oo dadka la wacdiyo la waaniyay ayaa maarta la istusiyey marka culummada waxay kala go'aansadeen dawladda countiga iyo dawladda weyn ee national government labadaba in baaq loo diro oo MPyaashi iyo MCyaashi iyo gafanihii kulliga baaq loo diro oo la yiraahdo fadhiga iskaga kaca
dadkiina khatar ayay ku sugan yihiin xaaladan aan ku jirno haddiisan ilaahay wax ka bedelin ama aan gurmad la samaynin dadkii khatar bay ku sugan yihiin sidii 92 dhacdo oo kale inay dhacdo ayaa khatar loogu sugan yahay marka culummada waxay arkeen oo kale inay sameeyaan biyo dhaamin sheekh xasan go'aamada aad soo saarteen ma ku jirtay in aad idinkoo culimo ah inaad abaabushaan dadka alla waxsiiyey inay dadka kale u naxariistaan oo aad qaadhaan gurtaan arrintaa wax lagaga qabanayo sax waay haa waan go'aansanay go'aamadii meesha ka soo baxeen ayay ka mid ahayd inay maaragtay culamaa udiinka masaajida iyo beec mushtarka iyo maaragtay abaabul iyo qalqaale inay sameeyaan oo dadkii u sameeyaan biyo dhaamin iyo cuntasiin dadkii madaxda ahaa ee siyaasiyiintii la doortana arrinta ayada laftooda laga qaybgeliyo oo gurmad guud in la sameeyo ayay culummada ku hesheen dowladda county national governmentna arrinta ayada la gaarsiiyey shirar iyo fadhiyaalna lala yeesho waa tahay sheekh xasanow dadku culimmada waxay u yaqaanaan oo ay ku barteen wacdi iyo tilmaan laakiin waxaa jira sida xaqiiqadu tahay rag culimo oo ilaahay iyaga laftooda uu waxsiiyey oo hanti leh culimmadu doorkan ma ka qayb qaadanaysaa inay iyagu bixinta ugu horeeyaan oo wax buuran ay dhiibaan sax waaye arrintaasayta waayadii hore siday xaaladday ahaan jirtay iyo waayadan dambe xaaladda way kala duwan yihiin culummadeenni hore culummada hadda joogta way kala duwan yihiin culummadeenna ayaga laftooda ilaahay dhaqaale siiyey oo maasha allah culummo waxaa jiraan beec mushtar oo waaweyn oo dhaqaale fiican haasaan marka culummadeenna waxay diyaar u yihiin ayaga laftooda inay hormood u noqdaan example inay tusaale u noqdaan dadweynaha meelaha culummada foorumyada meelaha ay ku kulmaana fariinta iyo khabarka kulli waa la gaarsiiyey waana loo sheegay culummada kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan cabdulaahi camey oo khadka taleefonka ee gaarisa ugu warramay waryahayaga axmed nagaash facebook ay dhegeystayaal badan ra'yigooda labada warbixin ee isku xigay ay kaga soo dhiibteen ismaaciil macalin hureyre oo ka soo qoray magaalada muqdisho waxa uu ra'yigiis ka soo dhiibtay warbixintan ugu dambeysay waxa uu leeyahay abaartaasi ba'an ay saameynta ku yeelatay dad iyo duunyaba ee laga soo sheegaya deegaanada ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya run ahaantii aad baan uga xumahay waxaase dadka halkaas ku nool ama ku sugan looga baahan yahay inay roob doonaan oo alla baryaan si ay ilaahay uga dulqaado dhibaatada abaartaasi cabdinaasir maxamuud ciire oo isla muqdisho ka soo qorayse warbixinta ka horreysa ayuu ra'yigiis ka soo dhibtay wuxuu leeyahay waxaan ka xumahay abaarta dad iyo duunyaba saamaysay dhibaatada ka geysanaysa dadka ku sugan haatan degmada qooqaani ee gobolada jubbooyinka waxaanan ugu baaqayaa maamulada jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya inay gurmud u fidiyaan dadkaasi ay abaartu saamaysay si ay uga badbaadaan musiibo biniaadamnimo halkaasi ka dhacda waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook markana qaar ka mid a abwaanada iyo fanaaniinta kooxda waaberi ee magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid go-aan wasaaradda warfaafintu ay uga ogolaatay shirkad maxalli ah in ay makhaayad uga hirgeliso dhul bannaan oo ku yaalla dhismaha tiyaatarka qaranka ee magaaladaasi warqad uu ku sixinaa wasiir cismaan abukar dubbe ayaa waxaa lagu ogolaaday shirkadda xawataako in ay makhaayad iyo jirdiinno lagu nasto ka hirgeliso dhulka dambe ee tiyaatarka heshiiskaas oo sanadkiiba ay shirkaddu ku bixin doonto $3,000 oo kira ah oo muddo 15 sannadood socon doona haddaba arrintaasi waxaa dadka diidan ka mid ah alxamiistaha weyn cabdikariim faarax qaarey jiir oo agaasime ku-xigeenka tiyaatarka qaranka ah khadka taleefonka ayuu igu warramay waxaan marka hore weydiiyey waxay diidan yihiin waxa weeye waxaan diidannahay tiyaatarku waa masrax waa meesha ummadda soomaaliya laga hogaamiya dhaqankeeda muraayadda laga daawado wey tiyaatarkii waxaa la sameeyey in dad ganacsatada qayb dambe oo ciyaartaydu leeda iyo dhinacii masaajidka dambe oo aan ku tugan jirnay in lagu wareejiyo oo laga iibiyo 20 sano yaa ka iibinaya waxaa ka iibinaya ninka maareeye laga soo dhigay dhowrkii bado u dambeysay sideed ku ogaateen in la wareejinayo dhulka tiyaatarka waxaan ogaanay markii warqadihii aan la kala saxiixday haddii warqado la kala saxiixday marka dee warkaa wuu tegey soo maaha ma tegi karo waxba kama jiraan dowladahaan maanta dowladda maanta jirta waa dowlad ka shaqaynaysa sidii loo gaari lahaa xal nabadeed iyo dowladnimo loo dhisi lahaa oo barlamaan loo dhisi lahaa dowlad siyaasa gadaysa maahan 60 sane ayaa fanka ku jiri 760 baa la furay tiyaatarka 750 sano u dhisan yahay gabar yar oo ganacsata ah inay tiyaatarka inta timaado dhinaca waybsanaya soomaalidu kaqaaday ka tahay xaruntii dhaqanka muraayadda ummadda halkii ummadda laga daawaday waxaana loo sheegay in halkaas laga dhigayo makhaayad oo dadka tiyaatarka qaranka tegaya halkaas wax ku cuni doonaan marka ma midaasaa diidantiin tiyaatarku makhaayad buu leeyahay sharciya oo loo sameeyey
weligeeda uu lahaan jiray haddana yahay sidiina u samaysan baarka siyaasalkaa la yidhaahda 600 qof buu qaadaa fadhiga xataa la fadhiisanay maxaa keena marka waa sheeko kale waxa weeye meesha dadka la siiyey waa meeshii siyaaska wuxuu qaybsamaa sugaan iyo dhaqan ayuu qaybsamaa si dhaqanka ee ciyaaraha oo dhan ay iska lahayeen xafiisyadoodii meeshay ku baroobeynayeen meeshay ku cayaarayeen meesha dambe baabuurta dambe la soo gelin lahaa haddii dhinaca kale buuxsamo somaa 2 baa 3 baabuur ba qaada weeye waa dhabarka tiyaatarka waa meeshii falka rooga oo ciyaaraha marka cabashadiina ma u gudbiseen wasaaradda warfaafinta aad ka tirsan tihiin waxaa ba laleeyahay wasiirkaaba saxiixay oo wasiir baa siyaasadkii la gadanaya saxiixi karaa anigu waaba la yaabay laakiin waxaa laleeyahay dhulkii lama gadin ee meel bannaan ba waxaa la siiyey koox ganacsataa inay maqaayad ka sameeyaan ma been siyaasadka dhabarkiisu waa 20 tilaabo waaye waxaana iskale ciyaartooyda iskale dhaqanka oo meeshay ku cayaaraan masraxa markay suuqurayaan gadaal bay ka soo galaan halka iyagoo joogay tiyaatarka gadaal ka soo galaan maxaa ku jaban marka dhulkaas bannaan in la kireeyo oo tiyaatarkii iyo dadka ka shaqaynaya ay dhaqaale ka helaan dad ganacsada ah curuda ayaa la wareejiyey oo la baabiyey shabeella ayaa guriga laga dhistay carsaan laga dhistay tubba ayaa hadda carsaantu ka dhisanta wax alla wixii muraayada dalka oo dhan baa la boobaya dalka annagu waxaan rabe wixii aan ka hadlayno maa dalku halis buu ku jiraa siyaasi ahaan qarannimo nabadgelyo wax walba halis buu ku jiraa meeshii halka aan ka hadlaynaba tiyaatarka aan ku hadlayna ayaa la gato maxaa sharci ah oo ka yaal marka tiyaatarka iyo qaabka loo ilaalinaya iyo dhulkiisa waxa weeye waa muqadas taalada xawataaka iyo ma la baabiin karaa cabashadiinan marka meel kale oo ad gudbiseen qabanay waxaan idhi wax imaan kara iyo wax laga gadi karo iyo wax la iibin karo iyo wasiir iyo dowlad iyo wax iibin karaa ma jiraan hadda maxaad doonaysaa in la sameeyo waxaan doonayna ummadda soomaaliyeed ma u fadhino meel kastay joogto soo maahan ayagaa iska leh kaasi waxa uu ahaa laxamiiste cabdikariim faarax qaarey jiir oo ah agaasime ku-xigeenka tiyaatarka qaranka oo ii warramayay hase yeeshee agaasimaha tiyaatarka qaranka abwaan cabdulqaadir cabdi shube oo isna khadka taleefonka aan kula xiriiray ayaa gaashaanka u daruuray in la gaday dhulka bannaan ee tiyaatarka waxauu intaasi ku daray in dhulkaasi bannaan loo kireeyey si looga faa'iidaysto shirkadda laga kireeyeyna sifa sharci ah ay ku heshay dhulka waraysigan ayaana dhex maray bismillaahi raxmaan raxiim dalka waa la socotaan oo xogtiisa waa ogtihiin oo waad u dhalateen moogta aniga waa beri waxaa laygu magacaabay sanadkii 2019 bishii u dambeysay waxa laga qabtana idinkaa indhihiinu macallin yihiin oo waa daawan kartaan tiyaatarku sidii caadiga ahaan jiray wuxuu u baahday makhaayad heer sare ah oo martida iyo madaxda iyo haddii la kure dadka eliidka ay kafee usoo doonan karaan oo si tiyaatarku u noqdo meel camiran oo maalin walba la joogo moogta dad badan baanu ka dalabnay inay makhaayaddaas sameeyaan kabacdi waxaa ku guulaysatay gabar shirkad leh oo hoteelka xawataako haysata oo la yidhaahdo shariifo laakiin abwaanada kale aan la hadalnay waxay leeyihiin tiyaatarka makhaayad wuu leeyahay ee dhulkiisa lagu takrifalaya adeer waa been makhaayad ma leh hadda waxaa ila joogay in badan oo abwaanin iyo fanaaniina waa been adeer makhaayad ma leh waxaa la dhisayaa meel high glass ah oo madaxdu imaan kardho martidu imaan karto oo maadaama tiyaatarku qarankii yahay makhaayad qaran oo u eg meel madaxi timaado oo dadka iliidka dalku yimaado oo lagu sheekaysto si uu u camiraado tiyaatarku shirkaddan aad leedahay xawataako ee aad qandaraas ka siiseen ma dhulkaad ka iibiseen ma wakti baad u qabateen maxaad siiseen may adeer dhul bannaan oo bannaan baanu waxaanu kaga kiraynay 250 bishii oo dollar miya oo dollar $250 sanadka hore 3,000 weeye lacagtu wasaaradda maaliyaddaana loo shubayaa maanta in loo shubay ama shalay loo shubay ma kala hubo meeqa sana ay halkaa ku shaqaysanayaan waxaanu siinay 15 sano inay ku shaqaystaan arrintan ma ka talageliseen dadka kale abwaanada ee muddada dheer halkaa ku soo shaqaynayay qaybna ka ah tiyaatarka qaranka adeer macaane wuxuu waa barnaamij dowladeed wasaaradda bay leedahay warqadda wasiirkaa soo saxeexay aniga markii ugu dambaysay ii timi moogta adiga dowladnimaduna kuma jidho hebelow maxaa garad iyo hebelow maxaa garad laakiin abwaaniinta kale nala hadlay waxay ku doodayaan iyo fanaaniintuba in dhulkii la boobay
shirkad la siiyey oo si gaara loogu takrifalayo in adeerow way soo bixi doontaa bari cuna soo bixi doonee ninkii dembi gala iyo ninkii barabugaanto sameeya iyo ninkii cidcaaya jawaab dawliya buu helayaa waana ka war sugaynaa wax laga gaday iyo wax la siiyey midna ma jiro maadaama haatan ay arrintaa ka gadoodeen qaar ka mida fanaaniintii nicaanka ahaa idinkana aad leedihiin dhulkii waxaan ka kiraynay shirkaddaas kadib markii shirkado badan ay soo tartameen oo shirkaddaas ku guulaysatay si xaaladda loo dejiyo maxaad samaynaysaan ninka dembi baa layga galay tuug baa laygu sheegay dacwadii waa geeyey jawaabtaan sugaynaa raggan gadoodsan maxaad ku qancinaysaan maxaan ku qancin lahayn maxay la gadoodeen ninkii kibir u gadoodaa isagaa gadooday de maxay ku gadoodeen aan ku samayn dhulkii bay leeyihiin waa la gatay bay leeyihiin baa leedahay anaa kule lama gadan lamana gadan doono kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdulqaadir cabdi shube agaasimaha tiyaatarka qaranka oo khadka taleefonka ee magaalada muqdisho igu warramayay haatanna saacaddu waxay dul taagan tahay 5:31 waqtiga bariga afrika xilligan oo kale waxaanu idiin soo gudbinaa wararkii caalamka qodobadii ugu door korona waxaa la diyaar axmed nagaashi agaasimaha hay-adda qaxootiga qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ka digay in dhammaadka daadgureynta Afghanistan ka socota ay noqon doonto bilowga dhibaato la xadle oo dalka ka dhacda waxuu dalalka waddanka logo ugu baaqay inay xuduudaha u furaan sidoo kale wadamada kale dunidana waxa uu ka codsaday inay qaataan mas'uuliyadda bani'aadanimo ee ka saaran dadka reer Afghanistan ee qaxaya faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka soo gaadhay shacabka weerar ay qaaday diyaaradan duuliye lahayn ee xaddi oo Washington ay sheegtay in lagu beegsaday dad lagu tuhunsan yahay inay yihiin ismiidaamiyayaal ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamka wararka ayaa se tibaaxaya in 10 qof oo rayida lagu dilay weerarka oo dhammaantood qoys kaliya 6 ka mid ah ayaa la sheegay in carruur ahaayeen oo toogu yarina ay ahayd inan yar oo 2 jira Taliban ayaa xidhay wadaad saameyn weyn leh oo reer Afghanistan oo la taliyo u ahaa madaxweynihii talada laga tuuray Ashraf Ghani wadaadkaas oo la yiraahdo Mawli Mohammad Sardar Sandran ayaa mar ahaan jiray gudoomiyaha golaha culimada Afghanistan wiilu dhalay ayaa sheegay in Talibanku ay wadaadka ka qabteen gobolka Khost sawir la baahiyay ayaa muujinaya Sardar Sadran oo isagoo indhaha ka xidhan kursi ku fadhiya khubarada Mareykanka ayaa ka digaya in xeebaha gobolada Louisiana iyo Mississippi ee dalka Mareykanka ay ku soo rogman doonaan daadad halis ah maadaama duufaanka Aida uu ku soo dhow yahay bariga goboladaas Aida ayaa haatan xooggiisu isdhibaytan iyo markii uu xaddii soo gaadhay bariga haatanna lagu sheegay in halistiisu aanay sidaa u sii weyneyn laakiin xarunta la socodka duufaanada ee Mareykanka ayaa sheegaysa in roobabka mahigaanada ahi ay khasaaro badan oo dheeraad ah keeni doonaan oo daadad waaweyn ay soo rogi doonaan agaasimaha xafiiska Yurub ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in ragaadka barnaamijyada talaalka fayraska corona iyo kororka xaddiga uu ku fidayaaba ay yihiin arrin walaac abuuraysa Hans Klug oo ayaa saadaaliyay in qaaradda Yurub ay ugu dhiman doonaan fayraska in ka badan 230,000 oo qof marka la gaadho bisha Disembar ee sanadkan aad buu mahadsan yahay axmed maxamed ibraahim axmed nagaash ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ugu door karoona xilligan halkaad nagala socotaana waa BBC barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta waxyaabaha inoo soo socda waxaa ka mid waxaa xoogga la saarayaa kow horta dersidda af soomaaliga yacni baridda dadka la barayo in nidaamka tacliinta qayb libaax inuu ka yeesho waxa aan kale oo xoogga saaraynaa sidii loo soo saari lahaa dad u tababaran oo macallimiin ku habboon digidda af soomaaliga iyo suugaantiisa halkaasoo hadda dhibaata ay ka jirto waa heshiis ay gaareen akaademiyad goboleedka af soomaaliga iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo lagu horumarinayo afka soomaaliga waraysi aynu umurtaas idinkaga haynaa qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan wararka kale ee caalamka aynu eegno waxaa hadda baarlamaanka waddanka South Sudan ka soconaya kalfadhigii ugu horreeyay ee baarlamaankaas uu yeesho tan iyo dagaalkii sokeeye xildhibaanada golahan cusub ayaa waxaa laga soo kala xulay xisbiga talada haya iyo weliba kooxaha fallaagada in la sameeyo golo shacab oo loo dhan yahay ayaa waxay qayb ka ahayd heshiiskii nabadda ee 2018 kaas oo lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee muddada 5 sannadood dalkaas ka soconayay kaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 400 oo kun oo qof faafahinta warkanna waxaa inoo diyaariyey tiftiraha wararka Afrika ee BBC-da Will Ross waa kan Xasan Cali Geelo oo soo jeedinaya arrintani ayaa ah tallaabo horey loo qaaday marka la eego xaaladda ka jirta Suudaanta Koonfureed markii ugu horreysay ayaa gudaha baarlamaanka dalkaasi waxaa ku shiraya ku dhowaad 600 oo xildhibaano ah oo ka kala socda xisbiga haya talada dalkaasi iyo garabyada fallaagada ah ee qaybta ka ah heshiiskii la saxiixay kulankani waxaa shir gudoominaysa haweenaydii ugu horreysay taariikhda dalkaasi ee abid noqota gudoomiyaha baarlamaanka waa Jema Nunu Kumba hase yeeshee waxaa gaabis ku socday
qaabka nabadaynta dalkaasi tan iyo markii sannadkii 2018 la saxiixay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee soo afjaray colaaddii sokeeye ee dalkaasi. ilaa iyo haatan dalkaasi ma lahan ciidamo midaysan, waana arrin halisteeda leh. waxaana sidoo kale soo baxayay baaqi ah in dadku ay dibadbaxyo isugu soo baxaan, iyadoo dadka qaarna ay sheegayeen in hogaamiyaasha siyaasadeed ee dalkaasi ay guuldarraysteen ayna tahay khasab in xilka laga qaado. rajada haatan jirta ayaa waxa ay tahay in xildhibaanada maanta ku shiraya golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay dalkaasi suudaanta koonfureed u horseedaan dhabbaha nabadda, islamarkaana ay diiradda saaraan sidii loo horumarin lahaa dalkaasi, halka ay haatan eegayaan jeebkooda oo keliya. xasan cali geelle aad ayuu u mahadsan yahay. markana kusoo dhowaada war kooban oo dhanka magaalada muqdisho naga soo gaaray. maxkamad ku taal magaaladaas oo militari ayaa waxa ay 10 sannadood oo xabsi ah oo weliba xabsi ciidan ah waxay ku xukuntay cabdisamed ibraahim cumar oo lagu helay inuu ka tirsanaa ururka daacish ee ka dagaalama buuraha gobolka bari ee puntland. sida laga soo xigtay kooxaha dembi baarista ee soomaaliya, cabdisamed oo ku dhashay magaalada gaarisa ee waddankan kenya ayaa waxa uu go'aansaday inuu ku biro ururkaasi isaga oo jooga magaalada tan nairobi ka hor inta uusan u safrin soomaaliya. waxaa kaloo la sheegay in cabdisamed ibraahim uu tegey buuraha galgala sanadkii 2016 halkaas oo si rasmi ah ururkaasi uga mid noqday. sida ay sheegeen hay'adaha dembi baarista ee soomaaliyana dhowr dagaal ayuu halkaasi kaga qayb galay intuu puntland joogay. waa kuwa dhex maray ciidamada puntland iyo kuwa ururka daacish iyo kuwo kaloo dhex maray iyaga iyo ururka al-shabaab. haddaba kooxaha hay'adaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee cabdisamed ibraahim cumar waxay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee magaalada muqdisho, halkaas oo doonayay inuu kaga gudbo magaalada, balse maxkamad ciidan ayaa waxa ay duldhigtay xukun 10 sannadooda. xukunkaasna waxaa riday garsoorka maxkamadda gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo 10 sannadood xabsiga ciidana weliba ninkaasi ku riday. ka dhegaysa BBC Somali mobilkaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. waa tahay saacaduna haatan waxa ay dul taagan tahay 5:37 daqiiqo weliba 50 ilbiriqsi waqtiga bariga afrika. barnaamijka ciyaaraha oo xiise gaara leh ayaa inoo soo socda, balse markan magaalada muqdisho waxaa heshiis lagu horumarinaya af soomaaliga ku kala sixday jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo weliba akaadimiyeed goboleedka af soomaaliga. waxa ay labada hay-adood ka wada shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa cilmi baarista, barista iyo sugaanta af soomaaliga. arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay dadaalada akaadimiyad goboleedka af soomaaliga ku doonaysa inay ku horumariso afka. haddaba faahfaahin intaasi dheer waxaan weydiiyey guddoomiyaha akaadimiyad goboleedka af soomaaliga dr maxamed daahir afrax. waxaanu kala saxiixanay waa heshiis kaasi iyo wada shaqayn ay yeelanayaan labada dhinac, jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo akadeemiga goboleedka af soomaaliga, kiiba inay iska kaashadaan dhinaca horumarinta iyo tayeynta iyo cilmi baarista af soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed. af soomaaligu waa uu ballaaran yahay, xaggeed xoogga saaraysa? waxaa xoogga la saarayaa kow horta dersidda af soomaaliga, yacni baridda dadka la barayo in nidaamka tacliinta qayb libaax inuu ka yeesho sidii qaybtii libaaxa uu ka lahaan jiray burburka ka hor, in sidii loogu soo celin lahaa oo jaamacadda ummaddu ay kaalinteeda uga qaadan lahayd iyadoo akademiyada ay iskaashanayaan. waxa aan kale oo xoogga saaraynaa sidii loo soo saari lahaa dad u tababaran oo macallimiin ku habboon dhigidda af soomaaliga iyo suugaantiisa, halkaasoo hadda dhibaata ay ka jirto oo cid waliba ay ka cabanayso in laleeyahay macallimiin u tababaran. marka macallimiintaas yani soo saaridooda, cilmi baarista yani af soomaaliga iyo suugaanta yani dhinacyadooda kala duwan, guud ahaan horumarinta aqoonta. idinka iyo jaamacadda ummadda ma kala qorshaysateen dowrarka aad kala ciyaari doontaan? akademiyadu haddaan ku horumariyo waxay ciyaaraysaa dowrka ah khibraddii iyo dadkii aqoonta u lahaa soomaaliga cilmi ahaan iyo suugaantiisa ayay maarata akademiyadu haysaa, iyo markaa arrintaa qorshaynteeda iyo barnaamijyo samaynteeda iyo dhigiddeeda iyo waxaasay maarata ku hagaagaysaa. jaamacaddana waxa ay gacan ka geysanaysaa sidii farsamo ahaan meeshii hawsha lagu qaban lahaa, sidii dhaqaale loo raadin lahaa, sidii ma garanaysaa hadhow wada samaynta maarata shahaadooyinka la bixinayo, dhinacyadaas iyo dhinacyo kale ku hagaagaysaa jaamacadduna. deegaanada af soomaaliga looga hadlo jaamacado badan ayaa ka jira, maxaa keenay in jaamacadda ummadda oo keliya aad heshiiskan la gaartaan? waa su-aal fiican. horta jaamacadda ummadda oo keliya maaha labaana gaarin, waxa weeye jaamacado kale, jaamacadaha geyiga soomaalida yani qaar waaweyn oo aan hore ula lahayn heshiis
na way jiraan qaar kaloo badan oo hadda aan u balansannahay yani heshiiskaan oo kale inaanu wada saxiixanana waa jiraan hase yeeshee jaamacadda ummadana ahamiyad gaar aanu siinaynaa maadaama ay tahay jaamacaddii qaranka soomaaliyeed oo jaamacaddii hooyada u ahayd maaragtay oo ugu horreysay oo keligeedna ku ahaan jirtay maaragtay muxuu xagga soomaalida soomaaliga iyo darsidiisa iyo waxaasna ku horreysay mudnaan badan bay hogaana laakiin sidaas oo ay tahay waxaa ka horreeyey oo hore aanu heshiis ula soo saxiixanay oo aanu leenahay wada shaqayn iyo sidaas oo kale ah jaamacado maaragtay waaweyn oo kuwa soomaalida ay ka midka yihiin jaamacadda jigjiga iyo jaamacadda jabuuti iyo jaamacado ku yaalla maaragta xagga puntland sidee loo dhaqangelinayaa heshiiskan aad gaarteen waxaa la samaynayaa qorshe howleedyo ku kala aadan dhinacyada heshiisku ka hadlaayo dhinacyada la iska kaashanayo oo wax lagaga qabanayo daryeelka iyo horumarinta iyo darsidda af soomaaliga iyo suugaanta iyo taariikhda iyo aqoonta la xiriirta oo dhan sida loo horumarinayo oo labada dhinac ay isaga kaashanayaan mid walba waxaa loo samayn doonaa qorshe faahfaahsan oo u gaara heshiiskan guud waxa weeye waxaan afka qalaad lagu yidhahdo m o u ga waa mabda'ii laga dhaqaaqaya weeye hadhow meeshii la taxraacay laakiin faahfaahinta waxaa lagu cadayn doonaa sida loo fulinayo iyo hawl walba yani qoraalka u gaarka ah iyo mashaawilaadka u gaarka ah waxaa la sheegaa in af soomaaliga tobannaankii sannadood ugu dambeysay uu dhibaato weyn soo wajahay idinka haddaad tihiin akademiyad goboleedka af soomaaliga dhibaatadaas maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan wax badan baa nagaga qorshaysan wax badanna waa ka qabanay ilaa hadda muddadii koobnayd akademiyadu ay soo jirtay dhinacyada xooga saarayso akademiya awalna saartay oo wax badan ay ka soo qabatay wax badan naga qorshaysan yihiin waxaa ka mid a dhinaca cilmi baarista iyo darsidda maaragtay afka iyo suugaantiisa waxaa ka mid a dhinaca tayeynta adeegsiga af soomaaliga oo meelaha yani aldowlaha u ah yani adeegsiga af soomaaliga oo ay ka mid tahay warbaahinta waxbarashada maamulka xafiisyada intaasoo dhan oo af soomaaliya aan tayeysnayn yani si aan tayeysnayn loo adeegsado ay daliilo badan ka jiraan sidii loo horumarin lahaa tababaro badan baanu ka bixinay oo aanu siinay warfidiyaanka iyo macalimiinta afdiga iyo suugaanta iyo oo yani dhalinyarada wax ku qorta yani af soomaaliga oo qoraal daradka ah oo aanu sida wax loogu qoro af soomaali saxa oo qurux badan aanu tababaro badan ka siinay haddana qaar badan ay noo qorshaysan yihiin waxaa ka mid a u ololaynta iyo ka wacyigelinta dadka qiimaha uu afkooda hooye u leeyahay iyo halista ku